aan ka sheegi karaa ma jirto laakiin waxa aan online ka ku arkay ee isaga ku saabsan waxbaan kaaga sheegi karaa waa very easy laakiin waxaan horta isla fahmaynaa fikirkiisa iyo qaabka uu u maleeyo nin ahaan in loogu qiimeeyo sida uu eeg yahay السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتيوب كان دعونا يسان واسماعيل تام تي في فضلنا داتا بقشة كورس وحن كعسرنا يوتيوب كنا سبسكرايب نصارته حدات هرنا الجوكتين آدي ذا كعلم علنا الجوجاجا وصور لهذا مقال عصب أنت أنا مقالك إدين سودين آدي أنا كعلم حد علنا يا أصحاب عصب آدي أصول لبينيا ما دام يوتيوب كيني آدي أكوريو حلينا أصحابتنا سود لبهذا قام فرق سود لبهذا ويلكم ميل إدين كل جعليا ميل هاي إدين كل جعليا كسود لبهذا marka ku soo dhawaataan YouTube-kayga waxaan laga baahan yahay waajibaad yaryar aad u fudud aanan baahan laga rabin waajibaadkaasna waxa kamid ah muuqaalkan hadda aad daawanaysid inaad like noo saarto asxaabtaada aad la wadaagtid afkaarna hadii muuqaalkan ay ka dhaxaysid haduu ku cajibiyo wixii ra'yina xag hoose ku dhiibo intaana muuqaalkan isoo gudbinin saad ku soo aragteen hordhici hore qof walba hordhici hore soo arkay wixii muuqaalkan laga damacsan yahay oo soo daawaday bal aan ka hordhicin yaan he إذا كهرب عن مقالك جود يعني خلاص إذا كسيننا بالقصة دوات مقالك أنا فحصن aan ka sheegi karaa ma jirto laakiin waxa aan online ka ku arkay ee isaga ku saabsan waxbaan kaaga sheegi karaa waa very easy laakiin waxaan horta isla fahmaynaa fikirkiisa iyo qaabka uu u maleeyo nin ahaan in loogu qiimeeyo sida uu eeg yahay waxaan u maleynayaa ninkaas waxaan u dhahaynaa magaciisa waxa waaye gudoomiyaha quruxda Soomaaliyeed hello gudoomiyaha quruxda Soomaaliyeed ma aqaan sababta quruxda hataa qoftii daalanada ay ugu joogooyday la waa ku qareena waad quruxsan tahay kadibna laakiin qoftii daalanada hataa way ku sii gambisay waa fahmi lahayn shaxda okay anyway aan dhageysana marka aan dhageysana okay اوكي نفتي سويها حاليا نكون جعل تدخل الى بابا حاليا اوكي نينك نفتي سويها حاليا نفسده ugu yara xaliye ee waa leegu magacayga waa xaliye okay doctor xaliye ali okay ayatullah xaliye hogaamiye sare xaliye waxaas magacyadeeda waa aniga lama bixin macallin xaliye professor xaliye waxaas la baxnayoolayaasha maxal dhijiray titladaas iyaga ay keenay anigu lama bixin iskuguma waco so basically you know sometimes it's good inaad qaabka loo hadlaa xataa fahansan tahay okay let's listen ninkan fikirka uu faafinaya iyo maxal dhijiray sida uu daalanaya mana rabo inaan waqti ku bixino oo barnaamijkeena uu naga qaato daalanaanta rag badan oo noocaas ah laakiin tusaale waxaan u isticmaalayaa barnaamijkayga maadaama uu ku saabsan yahay nin ahaan qaabka lagu qiimeeyo adiga adduunyadu sida ay ku qiimeyso iyo sida adduunyadu ay u qiimeyso Khadiija Kuusay ama naagaha farqiga u dhaxeeya okay barnaamijkan ujeedkiisa waa wacyigelin waxbarasho iyo baraarujin ma aqaano mana lihi waska iyo cabsida uu mowduucan uu ka hadlayo ka qabo wax saaso pointiina ma jiro laakiin kaliya waxaan rabnaa inaan isla fahanno bal mar okay let's listen بس عنيبو حتى عنو بحن دونا ما يحا ده أجل ما أنا ما وحفهم لا ميسا وحفني يا مقشين بليز إنا يفهم سنة ربع وحفني يميجرين وعاد مقشين ميسانا حوغا نيو ما كان كفتنا ذا كاران فهمين ما فهمين أوكي وكسعوننا أوكي أكسعوننا waxay iga daran mataqaanaa markaad hogaamiye leedahay saameyntaaduna ay badato qof baa video samaynaya saddex qof oo kale u wacanaya background-ka inay uga qoslaan imagine like what funny you mad shaking bro like what's go just iga hadal it's okay like caadi waa hadli kartaa hadii kartaa oo xaliyaan rabaa inaan waxaan dhaho cool laakiin wax funny ma jiraan why do you need 3 guys inay kaamirada gadaashiisa soo fadhiistaan ma fahmin saddex nin oo adiga ku qoslay haddana wax lagu qosli ma jiraan like this is the biggest maxal dhijiray munaafaqnimo aan arkay noloshayda let's listen now okay أصلاً عام ترى فرما أنا صديق وهو جميع أهم ذاك السهول جيدا
habsamida dumarka maanta jooga 22-ka ayuu gebi ahaan balid ku yahay oo ka soo horjeedaa sidaan kuu sheegay barnaamijyadiisa run fara badan ayaa ku jirta laakiin mid okay number 1 wax faniya ma arkin laakiin ma raba inaan waqti badan idinka lumiyo waqti badanna idinka lumiyo ma jirto ninkan waxaan dhahaynaa waxa ku horna ma jirto aniga asaga naga dhaxaysa laakiin waxaan dhahayaa kaliya xalliyo hogaamiyahaaga waay haddaadan aqoon shaxda naagaha iyo sida nin ahaan laysu handle gareeyo waan ku bari karayaa waan kaa dhisi karayaa okay wax ibar ceeb ma aha nin kale ugu wacay brother may aros lahayn like I don't understand ma lagu arosa ma fahmin de what do you mean what fall xun tahay okay waad qurux badantay ma lagu aroos rabaa ilmo ma qaade uur ma qaade haro brother shame on you man inaad dhalinyarada iyo ciyaalka yaryar ka dhaadhicinaysid waxyaabahan fikradahan daaldaalan oo ninkan waxaan ugu wacaynaa ninka foosha xun okay cool waan fool xumahay master qurux badnay it's okay waan qaatay fool xumadayda laakiin ma lagu aroosa adiga ma dhihi karayo qaniis laakiin nin dhahaya waan quruxsanahay oo okay kadibna laakiin wax yar baan dib u laabanaynaa baarisir baan sameeyay researcher baan sameeyay mar waxaa jirtay ninkan YouTube-ka dhowr jeer naag la wareegi jiray waxyaabahaas naagteeda waa qofteeda waa qoftaan background yar baan sameeyay qoftaas qof garoob ahayd ciyaal soo dhashay dhowr ciyaal haysata haddii ninkan let's say aan dhahnaba quruxdiisu wax u jarayso maxay ugu jari weyday gabadh yaroo fresha maxayse naagtii isaga uu keenay ee daalanadii isaga uga tagtay wax la dhahaa ma jirto waan is furnay ama naagta ku dhahaysa waan tegayaa niyoodu nuu kala wad okay ama adaa dhahaya waan ku furayaa iyadaa furin dalbanaysa ama adaa furaya waxba kama dhexeeyaan so haddii aad quruxsan tahay master qurux badna oo salaamaya inuu basically wuu daawada macalinkiisa aan ahay laakiin waxbaan rabaa inaan baro kaliya aan fahansiyo ninkan haddii quruxdaadu nin ahaan wax kuu jarayso maxay naagta garoobta kaaga tagtay oo kuugu gambisay su'aasheedu waa taas haddaad naagaha sida loola macaamilo taqaanid oo adiga maadaama aad nin quruxsan tahay aad taqaanid naagaha sida loola macaamilo maxay naagta daalan kuugu gambisay ما فهمين اوكي حليه فول حو يس I agree حليه ماستر فول حمو 100% by the end of the day like brother waa lagu gambinoyaa xisaabta halkay ka qaldan tahay okay waana inaan isla fahanno fikrada noocana haddii aad u malayso nin ahaan qiimahaagu inuu ku jiro quruxda waan qaadanay waan kaa yeelnay laakiin qoftii daalanayd baa kuu gambisay adiga naag garooba oo maybe second hand third hand haydo rag badan ay soo mareen ba adiga ka tagtay markaasay waliba intay social media imaatay adiga ku isticmaashay kugu dhibca badsatay nin facaaga oo kala u tagtay oo social media laga yaqaan maxay quruxdaadu wax kugu jiri weyday okay absi markaad ka qabtid sida aad u eeg tahay heer waxaad gaadhaysaa dahdid aniga waan quruxsanahay no ninka ragga sida loo qiimeeyo waa different xalqadan baan rabaa inaan idinku fahansiiyo mar raba mawduuca ninkan inaan maxaa la jiray fikirkiisa wax saas kama fahmin laakiin inta hadda aan fahmay inaan maaragtay inaan kasii soconaan rabaa laakiin muhiimadeedu waxay tahay inaad fahantaan ninka ragga sida loo qiimeeyo iyo naagta sida loo qiimeeyo waa kala labo inagu sidaynu naagaha u qiimayno iyo naaguhu siday inaga inoo qiimeeyaan waa kala labo okay naag kasta weydii ma waxaad rabtaa nin noloshaada maxaa la dhihi jiray dabaraya oo aad maxaa aabbo fiican noqonayo oo nolol fiican ku gelinaya mise waxaad rabtaa nin iska sambaco iska quruxsan oo iska socda oo xataa sida loo hadlaan aqoonin waxa kula anigu ma naa kala rabaa ma rabto
qiimahaaga nin ahaan kuma xidhna quruxdaada laakiin haddana isaga u raacna sida uu sheegayo weli su'aasheedu waxay tahay maxay qoftaas kugu gambisay master qurux badna gudoomiyaha quruxda Soomaaliyeed maxay kugu gambisay qoftu haddii quruxdaadu ay ahayd waxa lagu qiimeynay ama waxa ay naagu arkeenay macnaha leedahay ma dhahayo uu fool xun yahay uu qurux badan yahay okay laakiin sida uu isagu sheegtay anigu ma dhayn okay so let's see kaliya waxaan rabnaa inay noqoto xalqadan waxbarasho rag badanna ay fahan u noqoto badana waad ogtiin aniga drama iyo waxaas iska daboorigaas ma aqaano cause already saameyntaydu macna badan bay dad badan u sameynaysaa uma baahni inaan viewers raadiyo aan maaragtay maanta dhan dadaal badan geliyo 18 video iyo YouTube iyo waxaas inaan soo geliyo maanta dhan aan qof uga hadlayo wariyaa dhalaatay wariyaa sidan baa tahay ma laakiin waxaan rabnaa fikir to fikir okay let's listen so meel waxa jirta uu ka dhawaajiyo dhahay ninka fikrado badan uu ka hadlo xaliye ma qiranayo laakiin hogaamiyihiisa fikrado badan uu ka hadlaa jirta 100% oo run ah taas micnaheedu waxay tahay nin ahaan uu iska indhatirayaa shaxda iyo aqoonta aan ragga maalin kasta fahansiinayo marka ay imaato platformyadayda iyo barnaamijyadayda kala duwan wuu fahansan yahay laakiin wuxuu ku leeyahay laakiin markaad nin emotional tahay even it's hard inaad hal point aad aqbashid way adag tahay waayo adiga dhan emotional baa tahay adiga dhan maxaa la dhihi jiray waxaad rabtaa hadalla kala socdaad sheegaysaa wixii personal bay tegaysaa kadib waxaad dhahaysaa aniga waa qurux badnahay tolaahay ninka quruxda waxa u jartaniyo ninka quruxda waxa u jartaniyo aw inaagay ragga quruxda ku raaci jiray barasoo raadiya midda ku taageerayni waxay tahay xaliye horta number 1 wuxuu ku sheegaa dumarka already wuxuu isu bedelay afayeenka dumarka so kama hadlayno xataa fikirka just we leave it okay kama hadlayno laakiin waxaan rabaa inaan isla fahanno already wuxuu bilaabay inuu dumarka difaaco iyo sheekada dheer buu galay xaliye dumarka wuxuu ku sheegaa xaliye already afayeenka dumarku noqday markii hore wuxuu gudoomiyaha quruxda ragga Soomaaliyeed wuxuu dhahay aniga waa quruxsanahay ninkan xaliye la dhahay laakiin waxaan u bixiyay master fall xumo maxaa la dhahaa 3 nin oo gadaal ka qoslana uu soo watay life afkayga soo socda waxaan soo wadanayaa 4 nin oo gadaal iga qosla wax yariisa markaan hadlo in la qoslaan rabaa please wax yariisa markaan hadlo in la qoslaan rabaa okay xaliye dhegeysa meesha dumarka maanta jooga 22 ayuu geli ahaan dhegeysa meesha fariga sidaan ku sheegay barnaamijyadiisa run fara badan ayaa ku jirta laakiin de ma jirto it is what it is waa inaad runta qaadatid iyo inaadan qaadanin don't be emotional brother hogaamiyahaaga haddaad ogtahay inuu runta sheego waa inaad raacdaa kam ardaydeeda ka mid noqo coaching aan ku siinaya oo ku caawina for free ma jirto oo run badan buu sheegaa laakiin there is no laakiin it's either inaad run sheegtid iyo inaad been sheegtid it's either inaad daalan tahay iyo inaadan daalanayn uma baahnid inaad listen maxamed Abdullah Xasan baa wuxuu dhahay ilaahu naxariistay ama afgaal aan kugu imaado ama af islaam wuxuu ka wadayna waxay ahayd ama maya mid ha laga helo xaliye uu run badan yahay okay hogaamiyahaaga waaye laakiin taas waa emotional kaaga waaye laakiin taas waa qiira jabaantaad ku nooshahay nin ahaan waxa waaye waa ma rabtid inaad qiratid inaad daalan tahay oo ay kaa taalo it's okay inay kaa taalan ahaan oo aadan aqoon badan lahayn waxyaabo badanna fahansanayn okay ma xuma dhegeysa meeshan midda ku taageerayni waxay tahay xaliye horta number 1 dumarka garoobadana wuxuu ku sheegaa garoob daalan kuwa gabdhahana wuxuu ku sheegaa shuulo okay taas fikirkayga waaye inaan naag garoob ku sheega way daalan tahay waa fikirkayga aniga ii khaaska waxaad ka bedelaysaa ma jirto wax ma aha oo adiga aad u baahan tahay comment inaad ka dhiibtid oo dumarka garoobka daalan no waxaad dhahdaa maadaama aniga ahaantayda nin daalan ahaan anaa garoobo daalan soo watay
ay iga daadsatay publicly maaha privately maaha publicly Soomaalida oo dhan iyagoo ka warhayso aniga la iga daadsaday platform ay samaysatay xariif kale oo adiga social media ha kugula jira aaday intaasoo dhanna ay garoob ahayd sidaa daraadeed waxaad iska dhigaysaa nin garoobyada u heelinaya ama nin garoobyada difaacaya laakiin waxaad rabtaa oo aad inaad ku qarisid pointka ah aniga waxa ii gambisay naag garoob ah oo daalan xaliyana wuxuu dhahaa naagaha garoobka way daalan yihiin yes because of lama macaamilo garoobyada aniga shakhsiyadayda aniga maxaa la dhihi jiray nin ahaantayda waa fikirkayga anigu maskaxdaydan ka hadlaa uma imaado inta inaan cidna ku qanciyo inaan maxaa la dhihi jiray dadka u madax salaaxano it's either inaad qaadatid runta iyo siday wax u jiraan iyo inaadan qaadan waxbana kama dhexeeyaan sidaa daraadeed baan u ahay ninka ugu saamaynta badan Soomaalida hadda nool oo aad adigu xataa iga hadlayso laakiin kaliya su'aasheedu waxay tahay why u samaynaysaa waxaan munaafiqnimo why iskaga dhigaysaa nin naagaha difaacaya adoo og boqolkiiba boqol you know inaadan shaxda naagaha fahansanayn maybe naagaha soo socda xataa ay ka daadsan doonaan you know raggan maxaa la dhihi jiray maalin kasta god intee ka baxan god kale ku dhacaan aad ku jirtid waayo sidaad u hadlayso iyo qaabkaad u hadlaysaan ka fahmaya inaadan ahayn nin ahaan raba inuu wax barto wax fahmo barnaamijkan waxaan u sameeyana waxaa waaye inaan ragga wax ku baro adigana aad ku jirtid kuma dhahayo aniga adiga isku facba no aniga hogaamiyahaagan ah very simple aniga hogaamiyahaagan ah aniga adiga isku manihin isku level manihin hogaamiyahaagan ahay sida kaliya aad ku survive garayn karta markay imaato shaxda naagaha iyo fahamkooda iyo la macaamilkoodana waa inaad ardayda ka mid noqotid ma aha inaad soo istaagtid wuu saxsan yahay laakiin muxuu garoobyada uga hadlaya wuxuu ku sheegay garoobyadu inay daalan yihiin because of adaa mid ka mida garoobyada daalan uu soo watay markaasay ku siisay so you see like emotionkaaga iyo maxaa la dhihi jiray qiirooyinkaaga kugu jira bay ka mid tahay bay ka mid tahay inaadan la garoob marka laga hadla xataa gaasku uu soo kacayo garoob wadaadi laakiin maxay kula joogi weysay ma fahmin laba bari kadib xarfaan kala wada naagtiisa say wax u jiraan dee waxbaa khaldan dee waa lagu isticmaalay adiga waa lagu isticmaalay qira brother it's okay way dhacdaa kulligan jab waan soo wada marnaa laakiin ninka ugu daran waxaa waaye ninka aan qiranin ee difaac ku jira Soomaaliye anigu kama hadlayo gabadha aan kala tagnay war maydan kala tagin way ku gambisay take your fat el brother ma ceeb ma aha mana aha inaan kugu shidanahay kaliya waxaan rabaa inaan wax ku baro waana qayb ka mid ah waxbarashadeeda iyo maxaa la dhihi jiray sidaan ragga wax u baro inaan isla fahanno nin ahaan haddaad loosgarayso ha is adkaynin take your L sii soco ceeb maaha brother waa lay gambiyey dhibaato ma jirto brother laakiin hadda wixii ka dambeeya waan soo adkaynayaa gamekeyga kor baan u qaadayaa shaxdayda kor baan u qaadayaa qaabka loo hadlo kor baan u qaadayaa I think videoga la soo diray dhowr 20 daqiiqo ahaa hal point baan ka fahmay oo ahayd anigu waxaan ahay nin qurux badan waa hogaamiyaha quruxda Soomaaliya ragga Soomaaliyeed uu quruxsan yahay ninkan soo wuxuu dhahay aniga xaliyaniyo nin fool xun waaye please I don't have a problem for xumada laakiin waxay tahay su'aasheedu ma fahansan tahay sida loo qiimeeyo ragga iyo naagaha ninka ragga maxaa lagu qiimeeyaa oo qiimihiisu ku xiran yahay naagtase maxaa qiimaheedu ku xiran yahay waa mawduuca barnaamijka waaye aan idin la wadaagayo kaliya waxaan rabay videoga aan idin noqdo iftiimis sida rag badan oo daanyaro ah ay maaragtay fariinta iskaga indha tirayaan walina ay godad u galayaan adoo fariinta iska indha adeegaya inaad tahay daanyeer baa lagugu yaacayaa kadib waxaad bilaabaysaa inaad noqotid nin u doodo xuquuqda naagaha jooji waxaas jooji brother ma fiicna kaliya ujeedka barnaamijkan waa wacyigelin waxbarasho iyo baraarujin
dhinac kasta oo barnaamijkan ku saabsan yahay maaha jawaab iyo qof daraama naga dhaxayso because maba naqaana at the end of the day laakiin waa fikir to fikir waa okay fikir to fikir waa shakhsiyad ahaantiisa qofkan ma aqaano laakiin sheekooyinkan oo dhan public bay yaalaan sheekooyinkan oo dhan wax qarsoon maaha okay sheekooyinkan naag daala ninkaana ka tagtay garooba ciyaal wadatay ku yaacday maxaa la dhihi jiray isaga shaxda uusan fahansanayn meesha ka ooyay Soomaaliya aniga waan afgobaadsanaya waxyaabahaas oo dhan public waay all the videos public waay wax aniga aan samaystay maaha wax aniga aan dagaal ama wax ku abuuraya maaha laakiin markaad iska indhatirto fariinta godad badan baad gelaysaa arrinta kale aan rabana waxaa waaye niyahow rag badan ha bartaan sida loo hadlo okay rag badan ha bartaan sida loo hadlo communication skillskaaga afka markaad kala qaado waa muhiim waxa afkaaga ka soo baxaya inay macno uun samaynayaan inay point uun ku socdaan in wax la fahmi karaya aad ka hadlaysid 20 daqiiqo video ka badan oo xalliye aad uga hadlaysid oo hal point aan ka fahmay barada ilaahay ku dhaarshay miyana khasaare ahayn waxaan ka fahmay laba shay wax taan dhaho labada shay aan ka fahmay waxa waaye rag isagoo kala oo daalan oo gadaal gadaashiisa soo fadhiisay waad ii qoslaysaan idinka okay marka ninkan uu foolxu yahay maxaa dhahday uu foolxu yahay it's like hata qosolka waa la qasbaya like come on like effects baa la isticmaalaya sound effects baa la isticmaalaya brother clearly aniga laga hadlo soo hogaamiyaha saameyntiisa waa dareemaysaan and laakiin waxaan dhihi lahaa waxay iska indhatirin fariinta haddaad daalan tahay waa daalan tahay wax laga qaban kara ma jirto qaado khasaarahaaga qaado maxaa la dhihi jiray jabka waa rag baynu nahay waynu ma ku jiro mise anaa u maleeya kuma jiraan wax faniya dhegeysa meeshan maadaama dumarka inta badan aad ku sheegto shuubo daalan shabuuto daalan garoob daalan adigu inaad tahay marka muuqaal ahaan saseeta adig waxaan leeyahay adiga Cristiano lacag kaama muuqato jir dhisan iyo shirnaanta suuqa kaama muuqato ninka dhahay dadka way daaliin madaxa waxa soo dhigaysaa intaas leeg oo kiya waxa soo dhigay intaas leeg indho ma jiraan jir ma jiro dhisan waa isku dhaxdhacsan tahay meelaha marka waxa la soo fadhisaa garoob daalan dhilla daalan okay so point-ka waxa waaye this guy wuxuu aaminsan yahay qiimaha ninka ragga inuu ku xidhan yahay sida uu eegyahay waana mawduuca barnaamijka muxuu yahay farqiga u dhaxeeya sida ninka lagu qiimeeyo iyo sida naagta lagu qiimeeyo markay imaato qaabka loo eegyahay waxyaabahaas madaxaygu siduu yahay waxyaabahaas that's too personal mana rabo the same way sida emotional comment u bixiyo laakiin isla fahano communication ka eber waay waxba kaama fahmin macalinkaagana waa diiday inaad wax ka baratid kaliya waxay imaatay uun hadda waxay iskugu soo biyay shubatay xataa fikir maaha waa ninkan siduu weegyahay ma aragteen ninkan siduu weegyahay ninkan ma aragteen oo keelayaal waaweyn buu wataa waraa daayarada caadi ma aha yes man caadi ninkan ku hareeraysan ninkan caadiga waalayaan trust me caadiga waala adi fiiri meesha waxa lagu qoslaya mataqaana nin isagoo sidaa u fool xun buu rabaa inuu dhaho naagaha waad fool xun tahay madaxaaga fiiri wax ciyaalnimada waaga ciyaalka hayda madaxaaga fiiri wariyaa wallahi waa runtiis markaasuu sii soconaya like wax faniya ma jirto qaab communication loo sameeyo ama qaab loo hadlo oo macno leh ma jiro meeshan ma taqaanid sida loo hadlo sida caadiga markay imaato sida
aanu ekahayna aan ka bilowno okay aan ka bilowno adiga sidaad u eg tahay hadday macna samaynayso oo adiga nin quruxsan aad ahaydba ama aad tahayba xaliye waa master folxume laakiin maxay garoobta kuugu gambisay adoo quruxsan gudoomiyaha quruxda ragga Soomaaliyeed why like haddii ay yihiin waxaan waxa lagugu qiimeeyo waan fahmi karaa sababta naagtu tagtay waan fahmi karayaa sababta ay naagtaasi u tagtay at this level brother this guy wuxuu ku nool yahay adduunyo kale wuxuu aaminsan yahay siduu u eg yahay in lagu rabo sheekada madaxa iyo waxyaabahaas soo xasuustay moogtahay ana adaydi sheegay insecurity badan baan ka dhex akhrisanayaa xalli ahaan markay maato fahankayga psychology-ga iyo neuroscience-ka iyo dadka maskaxdooda sida u shaqeyso markaan fiiriyo qofku qofku marka waxa la dhahaa baad maqashaan ma qof intuusan inta tuugdiin buu tuug ku dhahaa waana waxa waaye insecurity-ga waxa lagu qariyaa difaac baa lagu qariyaa amaan darada hoose ku haysata difaac baa lagu qariyaa haddii amaan dara ka haysato sidaad u eg tahay markasta waxaad ka hadlaysaa dadka sida u eg yihiin oo qofkaas uu fool xun yahay qofkaas waxa waaye wallahi bilaatintiisa way adag tahay laakiin hal waxaan isweydiino adoo nina maxaad jilciso u marsanaysaa adoo nina oo aad og tahay in tintaadu adag tahay maxaad jilciso iyo madoobayso u marinaysaa tinta absi intee leeg baad ka qabtaa amaan dare intee leeg baad ka qabtaa sida aad u eg tahay waxaan xanuun waay goonidiisa u baahan in looga hadlo laakiin keligiis maaha wuxuu tusaale cad u yahay rag badan oo cabsi ka qaba sida ay u eg yihiin una maleeya in sida uu eg yahay ay naaguhu ku qaadanayaan ama ay macna u samaynayso that's why maxaa la dhihi jiray isheeg maaragtay tinti loo jilicsaa la marinayaa waxaa la marinayaa maxaa la dhihi jiray garhka daawo miyadan arkin ilmo badan oo daawooyinka garhka lagu soo bixiya gadanaya ma taqaanaa sababtay u samaynayaan waxaa laga dhaadhiciyey ideology ah naagaha waxay rabaan ragga garh kale wuu qasbayaa so this guy wuxuu samaynaya waxaa waaye waxa la dhaho psychology-ga projecting insecurity samaynaya difaac buu gelayaa soo wuxuu leeyahay oh this guy suugi xaliye meedan arkin madaxiisa bad madaxaygu caadi waaye public waaye madaxaygu xataa koofi ma saarna okay oh ma ninkan galaasyo xiran yahay galaasyada way muuqdaan waxaan qariyay ma aha like wala arka what's the big deal oo ka hadlaysid mawduucu muxuu yahay and the same guy ka hadlaya nin fool xun iyo nin quruxsan madoobaysa tinta u marsan jilcisa u marsan tintiisa adag uu ku qanci waayay mana aha inaan isaga shakhsiyad ahaan tintiisa adag uga hadlayo laakiin nin tin jilcisa mariya basically tintiisa way adkayd so ma qaada nin aqbalaad ah war tintaydu way adag tahay tintayda weligay wax ma marin artay u taale hadday hal xabood inay igu soo harto wejigayga iyo madaxaygu way isu ekaanayaan okay arinta kale taa ka sii dara waxa ka mid ah xilliga uu video-ga duubay habeen waayaan u malaynayaa glasses ba habeen la qabaa sunglasses okay kuwan sunglasses maaha ya aan isla fahano okay kuwan sunglasses maaha okay sunglasses waa kuwa qorraxda la iskaga celiyo you get it sunglasses ka qorraxda la iskaga celiyo so waxaan isla fahmaynaa mawduucuna uu ku biyo shubanaya okay wax faniya ma jirto oo meesha uu ku sheegay number 1 number 2 cabsi iyo insecurity ninkan hogaamiyaha